Jungle. Audio Jungle. kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada janaalkeena wararka 24 akhbaaraadka weyn ee daawan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Khayre oo ka jawaabay dalabkii ahlu sunna, xasan sheekh oo war ka soo saaray hadalkii ka soo yeeray taliyihii hore ee nabadgelyada Soomaaliya, Amnesty International oo war culus ka soo saartay xariga Cabdirashiid Janan, Cumar Finish oo isbedelay iyo shuruud adag oo lagu xiray furista jidadka magaalada Muqdisho, iyo maamulka Somaliland oo ku dhawaaqday inay diyaar u tahay wada hadallo la gasho dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan soo dhawaada saaxiibayaal. Marka hore daawada ha moogaan inaad subscribe dhahto janaalkeena oo aad furato gambareelka isla markaana aad asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. waa hagaag daawadayaal aynu ku bilownay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka jawaabay dalabkii ka soo yeeray maamulka ahlu sunna. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug. Khayre ayaa waxaa Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, madaxa fulinta Galmudug, saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa Galmudug u tagay dhamaystirka heshiisyadii hore oo la gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee maamulka ahlu sunna, kuwaas oo hakad geliyay maalmihii lasoo dhaafay hadalladii ay kula jireen dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyaga oo dalbaday in Khayre uu yimaado magaalada Dhuusamareeb. Ahlu sunna ayaa Khayre uga maarmi weysay nuqullo ka mid ah heshiiskii ay la galeen xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, waxaana ka mid ah lacag iyo sidoo kale saami siyaasadeed oo ahlu sunna ay ku yeelan doonto maamulka cusub ee loo dhisayo Galmudug. sidoo kale ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa 4 bishan oo ku beegan maalinta Arbacada ah waxaa magaalada Dhuusamareeb ka furi doona shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanka Galmudug, kaasi oo la filayo inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb. saddexda hogaamiye ee ugu sarreeya maamulka ahlu sunna oo kale ah Sheekh Shaakir, Macalin Maxamuud iyo Sheekh Cabdishaaq Al-Ashcari ayaa xalay kulamo kula lahaa magaalada Dhuusamareeb ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, iyaga oo kala hadlay dalabaadkooda. waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan janaalkeena wararka 24 moogaan daawadana subscribe dhahdo janaalkeena oo furto gambalelka isla markaana aad asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. markana haddii aan eegno, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa war ka soo saaray hadalkii ka soo yeeray taliyihii hore ee nabadgelyada Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iska fogeeyay hadal ka soo yeeray taliyihii hore ee nabadgelyada Soomaaliya Cabdullaahi Sanbalolshe, kaas oo la xiriiray siyaasadda dalka iyo beesha Hawiye. Xasan Sheekh ayaa sheegay in hadalka Sanbalolshe uusan metelin siyaasadda xisbiga UPD ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo sidoo kale Sanbalolshe uu yahay xubin ka mid ah xisbigaas. siyaasadda Soomaaliya ee xiliyadan dambe waa mid aan jihaysnayn, sidaas daraadeed mararka qaar ayaa lala kulmaa aragtiyo kala duwan ama aan ku dooqsanayn mabaadi'da siyaasadeed ee noo jihaysan, taas oo ku qeexan dastuurka kumeel gaarka ah oo siinaya muwaadiniinta Soomaaliyeed xuquuq siyaasadeed oo aasaasi ah, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bariyahan waxaa baraha bulshada qabsatay ra'yi uu ka hadlay mudane Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo ah xubin ka tirsan xisbiga UPD. mudane Sanbalolshe waa mas'uul ka tirsan xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ee loo soo gaabiyo UPD, hase yeeshee hadalka uu ka hadlay ee la xiriira siyaasadda iyo qabaliga kama mid ahan mabaadi'da xisbiga UPD ee ku cad xeerka iyo barnaamijka xisbiga ee waa ra'yiga gaarka ah ee shakhsiyan uu leeyahay Cabdullaahi Sanbalolshe, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. ummadda Soomaaliyeed sidaas ha ula socoto, ayuu hadalkiisa ku soo koobay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan hogaamiya xisbiga nabadda iyo horumarka ee loo soo gaabiyo UPD. waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan janaalkeena wararka 24 moogaan daawadana subscribe dhahto janaalkeena oo furto gambalelka isla markaana aad asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. markana haddii aan eegno, Amnesty International ayaa war culus ka soo saartay xarigii Cabdirashiid Janan. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa tallaabo muhiim ah ku tilmaamtay xarigga wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo loo haysto xadgudubyo ka dhan ah bani'aadanimada. hay-adda ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqday in si degdeg ah maxkamad loo soo taago wasiirka amniga maamulka Jubbaland oo Muqdisho lagu xiray. qabashada Cabdirashiid Janan waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday isla xisaabtanka xadgudubyada halista ah ee xuquuqda aadanaha, taas oo ay geystaan shakhsiyaadka awoodda badan ku leh Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay agaasime ku-xigeenka bariga geeska Afrika ee hay-adda Amnesty International. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Jenaraal Sakiye Xuseen ayaa xaqiijisay in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay xireen Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ahaa wasiirka amniga maamulka Jubbaland. taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliyeed Jenaraal Sakiye ayaa sheegtay in wasiir Janan uu yahay eedeysane isla markaana booliiska baaritaano ku hayaan kiis loo haysto wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan.
ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa Cabdirashiid Janan ka qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho isagoo ka yimid magaalada Kismaayo waxa uu ku wajahnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxa uu Muqdisho ka raacay diyaaradda Ethiopian Airlines waa hagaag daawadayaal waxaad socotaan channelkeena wararka 24 mugan daawadana subscribe ahto channelkeena oo furto gambalelka isla markaana aad asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya markana haddii aan eegno gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa u muuqda inuu isbedelay isla markaana uu ka laabtay go'aankii uu ku furiyay jidadka magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa bedelay go'aankiisii ku aadanaa inuu furo jidadka magaalada caasimadda ee Muqdisho gudoomiyaha ayaa sheegay in furitaanka jidadka Muqdisho ay ku xiran tahay inay shacabka kala shaqeeyaan ciidamada ammaanka inuusan qarax ka dhicin magaalada Muqdisho isla markaana aan la soo weerarin xarumaha dowladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha ayaa sheegay in markii shacabka Muqdisho ay ka soo baxaan doorkooda ah in ciidamada ammaanka ay u soo sheegaan meelaha lagu diyaariyo qaraxyada iyo dadka fuliya ay iyaguna furi doonaan jidadka xiran ee magaalada Muqdisho wuxuu sheegay in markii la waayo qarax ka dhaca magaalada Muqdisho ay iyaguna ka shaqeyn doonaan furista jidadka caasimadda Muqdisho hadalkii hore uga soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ee uu ahaa inuu furi doono jidadka Muqdisho ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay shacabka ku nool magaalada Muqdisho waxaana ilaa hadda aan la ogeyn sababta keentay inuu isbedelo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir lama oga in haddii gudoomiye Cumar Finish uu cadaadis kala kulmay madaxda ugu sareysa dalka oo iyagu ku qanacsan in jidadka Muqdisho ay sii xirnaadaan maadaama ay u arkaan inay tahay tilaabo muhiim ah oo looga hortagayo weerarada ay furiyaan al-shabaab waa hagaag daawadayaal waxaad socotaan channelkeena wararka 24 mugan daawadana subscribe ahto channelkeena oo furto gambalelka si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya markana haddii aan eegno Somaliland ayaa ku dhawaaqday inay diyaar u tahay wadahadallo ay la gasho dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Somaliland ayaa sheegtay inay diyaar u tahay wadahadallo ay la gasho xukuumadda federaalka ee Soomaaliya si looga wada hadlo arrimaha ay isku hayaan labada dhinac ee la xiriira madax banaanida maamulka Somaliland kalfadhiga afartanaad ee golaha wasiirada Somaliland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxaa looga dooday arrimo la xiriira wada hadalka u dhaxeeya maamulka Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kulankooda kadib ayaa golaha wasiirada maamulka Somaliland waxay soo saareen war-saxaafadeed ka kooban 5 qodob in Somaliland ay diyaar u tahay inay sii socdaan wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya isla markaana ay ka qabsoomaan goob dhexdhexaad ah sida ay sheegtay maamulka Somaliland in Soomaaliya ay qirto in Somaliland iyadoo dowlad madax banaan ah oo xorriyadeeda qaadatay 26 Juulaay 1960 ay la midowday Soomaaliya 1 Luulyo 1960 in dhinaca Soomaaliya aysan wada hadalladaasi ku matali karin shakhsiyaadka iyo siyaasiyiinta u dhashay deegaanada maamulka Somaliland in beesha caalamku ay Somaliland ula dhaqanto dal madax banaan oo aanay qayb ka ahayn Soomaaliya dhammaan qoraalada iyo mashaariicda ay hay'aduhu ka fuliyaan Somaliland waa inay u isticmaalaan magaca qariirada astaanta iyo calanka maamulka Somaliland ay leedahay iyagoo u dhaqmaya in Somaliland ay tahay dal ka madax banaan Soomaaliya ugu dambeyn waxay golaha wasiiradu ku dheeraadeen ahmiyadda qabsoomidda doorashooyinka u leeyihiin maamulka Somaliland isla markaana mudnaanta koowaad la siiyo in doorashooyinku ay ka qabsoomaan halkaas guud ahaan waxaan inta ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya mugan daawada subscribe dhahto channelkeena oo furto gambalelka isla markaana aad asxaabta la sii wadaagto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya